aniga iyo magaaladan Hargeysa la yiraahdo magaaladan Hargeysa la yiraahdo markii aan imid oo ugu horeysay cilmi baaris baan u imid ina yar baan ahaa da'dayda waxba hadda sheegi maayo waxa rabtaan isku geegeysaan inaad soo saartaan waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idna dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabo maan aqoon inta lacag la soo siiyo xogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxa la yiri Hargeysa tago af Soomaaliya markii lagu dhawaaqay weey waxaad ka soo qabataa laba nin qowdan ducaale iyo Faarax Nuur hadda waa kii idin sheegay qowdan ducaale iyo Faarax Nuur qora ay yihiin ma aqaanano mana danayn jirin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray Hargeysa markaa imid si aan ku ogaaday baad waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale hatta buugga ku qori maysid qowdan oo isaaqa ma oranaysid ama qowdan oo ciida galaa lama ogolayn waxaan la ii tilmaamay oday la yiri ninkaas ciida gala aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdan ducaale waa Cabdi Waraabahan hadda yaala oo xoog ah markaas Cabdi Waraabe wuxuu ii keenay Maxamed Cabdi la oran jiray oo biiga ka keenay isaga iyo hadii la ku rogay in la oran jiray Nuur Maxamed Laangahay la oran jiray isna maxay iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarka ahaan ninka laaway beerta xorriyadda hotel yaro ku yaalo 26 Juun la yiraahdo ayaan degay wali markaa ma gaarin Oriental baan u soo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dago Oriental bil baan haystaa waqti labadii nin markaan dhameeyay Cabdi Waraabe ku soo noqo markaas aan labadii nin waa ka dhameystay gabayadii waa ka duubay Faarax Nuur baa yahay suuqina kacay maxaa la hado har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhaxgeeyay wuxuu yiri waryaar arabow warninkaani wuxuu doonayay qowdan ducaale ee Faarax Nuur anagu qowdan waa u sheegnay waxay seeday u sheegay marka anu waa yaraado yani arbaal lagu xiraaban leeyahay moogtahay laakiin isagu dan kama lahayn lamana xirin horta Hargeysa markaas ay ugu horeysay markii dambe oo aan midna markii waxa igu horeysay markii lagu dhawaaqay af Soomaaliga oo la yiri magaal intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin horta reer magaalka hal la baro afka farta sida loo qoro afka cidna cid bari maynay waa afku waa marka waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaamo ahayn marka waxa muhiim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka marka kormeer baan aniga nin kale oo madax ii ahaayo Axmed Ashkir Bootaan la oran jiray naloo soo diray oo inaan markaas ku dhigay ilaa Berbera Boorama iyo dhulkan baan naloo soo diray Calaayah markaasna waa imid buugayga aan ugu jeclahay oo aan hadii la ku rooyay oo ku saabsan Ismaaciil Mire oo aan ka qoray 74 meesha aan ku dhameeyay waa Hargeysa iyadoo horta taa qabsado Orientalka ay ahayd meeshaan ku saxiix inta markaan ka soo baxo marka waxaan leeyahay maanta af Soomaaligi meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkaan aan joogno ayuu ka mid yahay waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay waxa aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aan ka filayn waxaan waayay hal meherad oo af Soomaali ku dhigan waa wada Ingiriis sidee baad caruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaynaan ku barbaarin markay yar yihiin anaga waxaan la baray waagaan yaryarayn in af Soomaaligu ka fiican yahay afaf kale oo dhan inuu ka baraaqisan yahay Carabiga iska wadaaf adu afafka kale waa qab laakiin cidna waxay proof garaysay ma aha laakiin qab bay ahay ilaa nin raggii af Soomaaliga aad ugu dhaganaa nin ka mid ah oo waagi dambe madax noqday markii horena SYL ahaa waxaa la oran jiray Cabdi Casiis inuu xirsi wuxuu yiri magacayga saddexdu waa Carabi weeye
saddexdaba Soomaali baan ka dhigayaa ومحد ورانيسا عبد العزيز waxaa oranaya bidawaaq ilaahi bidihi ilaahi bidawaaq waaq wa ilaahi Soomaalidu lahayd intaysa muslimka noqon marka bidawaaq iyo Cabdi Aziz waa isku mid nuur wuxuu yiri xirsi nuur wuxuu yiri ifiye bidawaaq ifiye xirsina wuxuu yiri qardhaas marka uu yiri bidawaaq ifiye qardhaas ba magacayga la yiraahdaa maanta kadib waxay muujinaysaa yani sida loogu dhaganaa afka maanta waxaan moodaa in laga faanayo Soomaalida waxa isku xirayaa oo hadda yani wali ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af Soomaaliga waa kii hadda sheegay Maxamed Bedel oo lahaa raxweynta la yiraahdo afkiina waa gaar waxay cidda tirina waa naqaana oo hadda cid Soomaali dan kale ma aha waxaas adduunka waxa dhibay ee Afrika Soomaali waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaas dhibay Afrikana lagama helo dad saas kama jiraan Kenya waxa jooga laba iyo 40 qabiil mid baa Soomaali ah 42 kaas Soomaalidu waa hal qabiil Kenya ma aha qabaa'il kale ma aha waxay nooga fiican yihiin laakiin hal qabiil markay yihiin 42 kaas hoos uma sarfmaan oo Kikuyu waa Kikuyu wax cid kale ma noqoto waa suumid inagu hadaan saa ahaan lahayn ma ficnaan lahayn baan isiraahdaa mararka qaarkood waaba la heshiin lahayd dadkan wada dagaalamayo markii mid jaga loo dhiibay yahay kaas aha waa reer hebel baa la siiyay haduu reer hebel yahay reer hebelka hoose ma aha marka dhibaatada halka ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaatada naga haysata anigana waa soo gaadhaa maalin kasta sida raggan sheegayo dadka qabiil baa lagu anqariyay wali waagu hore waxaan oran jiray dadka waayeelka ah qabiilka ayaa ku faran ilaahay amarka dhalinyarada baa ka dartay hadda hayla waxay inda dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaas waxa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaajaa markuu idaacadaha tago waxa wuxuu sheegaa reer hebel ma sheego waana beenti ma dhageysto dadku ka maqla waxa la yiri qora anigu aan ahay baa la yiri siyaad baa la yiraahdaa markaas la yiri mid baa yiri siyaad idinka iyo waalidkiina alla cadaab siyaad reemudug buu ahay kaas ay maxaa ka rabtaa si dadka ahaa mid baa wuxuu maqlayaa marka wuxuu maqlayaa iyadoo la leeyahay saasa idaajaa sameeyo saas reer hebel ma sheego isagoo weligii dhageysan oo waxba iga ogeyn oo dhageysan buu leeyahay haddii aan la koro saas leeyahay anna markaasaan u sheegaa waxaan hebel soo adiga ma hebel soo adiga ma waagi dambe waa iska daayay waxaan ku soo koobay af Soomaaligu ma suugaanta Soomaalida oo aan sheegay anigu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasadda oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo ka soo horjeeda ama ay celiyo inaan sheego kuma khasbani maxay yahay suugaanta Soomaalida horta wax qof kaliya lagu haleeyana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiin dadka wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa waxaan idinku gowaabinayaa dhalinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aad u kacdaan suugaanta aynan kala soocino reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad u soo dhaweysaa ama dhageysataa sidii isaga oo yani aad isku qoratihiin inaad sida u fiirisaa arrintan markaa wax iyadana ha rumaysanin oo wax ka jira lama arko cid aan u eexdo cid aan ka eexdo wax dan iigu jirta midna ma jirto marka waxba kala sooci maayo aniguna aad iyo aad yaa u mahadsantihiin